maxkamadda degmada Cadaado ayaa xukun min hal sano oo xerag ah ku riday laba dhalinyaro ah kadib markii laba cisho kor lagu qabtay howlgal ay fuliyeen ciidamada booliska oo ka dhacay deegaanka Balinsokor ee Galmudug. labadan dhalinyaro oo lagu kala magacaabo Xuseen Axmed Cabdullaahi iyo Xasan Xuseen Cumar ayaa la soo qabtay xilli ay wateen gaari ay ka buuxaan 17 kartoon oo qamri ah iyo laba qori oo AK ah. gudoomiyaha maxkamadda degmada Cadaado Cabdicasiis Ciise Cali iyo taliyaha saldhigga ciidanka booliska ee Cadaado Maxamed Cadceed ayaa goobjoog ka ahaa xukunkaasi min halka sano ah ee lagu xukumay dhalinyaradaasi. maxkamadda ayaa sidoo kale amartay in dhalinyaradaasi ay bixiyaan ganaax dhan $500 waxaana sidoo kale dowladka Cadaado lagu burburiyay 17 kartoon ee qamrada ahaa. anigoo ah laba xiddigle Maxamed Cadceed Cismaan mataliya xafiiska guud ee xiraalinta Galmudug ujeedada eedayn si waafaqsan qodobka 71 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxaan eedeynayaa laba nin oo kala ah kow eedeysane Xuseen Axmed Cabdullaahi inaan sahro Saciid Barqadle 25 jir ah ku dhashay Galnisoor degan Galnisoor. labo eedeysane Xasan Xuseen Cumar ina Istaahil Maxamuud Cadceed 27 jir ah ku dhashay Gaalkacyo degan Gaalkacyo kuna xiran saldhigga booliska degmada Cadaado. waxaan ku soo eedeynay qodobka 342 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay wadeen sanayaasha sare ku xusan qamri gaaraya 17 kartoon iyo hal jawaan waxayna ku wadeen gaari nuuciisa yahay barobokis. eedeysane Xuseen Axmed Cabdullaahi aawe istaag waxaa lagu soo eedeeyay in lagu soo qabtay adiga oo wada gaari barobokis ah kuna wada khamri deegaanka Balinsokor. eedaa lagu soo eedeeyay waxaad uga jawaabi kartaa eedaas waan galay iyo ma gelin iyo dood sharci ayaan ka qabaa. maxkamadda waxaa u cadaaday in eedeysanayaasha labada eedeysane ee sare ku xusan ay yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo eedeeyay. sidaa daraaddeed maxkamaddu waxay ku xukuntay eedeysanaha koowaad Xuseen Axmed Cabdulle iyo eedeysanaha labaad Xasan Xuseen Cumar min hal sano oo xabsi ah. sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay gaariga iyo hubka ay siteen ganaax dhan $500. waxaa kaloo maxkamaddu xukuntay in la burburiyo dhammaan khamriga ay sideen. xukunka waxaa loo cuskaday shariicada Islaamka